wararkeena toddobaadka iyo maanta waxaa ka mid ah mudaharaadka Jabuuti war dhawaan ka soo baxay Muqdisho iyo nin sida la sheegay qabriga kala soo baxay qof 4 bilood ku aasnaa degmada Kinijahar ayaa laga soo sheegayaa dhacdo murugo iyo fajac dhalisay nin ka mid ah qabiilka halkaas dega oo lagu magacaabo Jeetu Munda ayaa muddo toddobaadyo ah isku dayayay inuu kala soo baxo qiyaastii 20,000 oo rubi oo ku jirtay ankoodka walaashiis oo dhimatay 26 Janaayo bangiga ayaa si joogto ah ugu xiray shuruudo adag isagoo ka dalbanayay warqad dhimasho iyo dokumentiyo dhaxal ah oo uusan haysan ninkan oo aan wax barasho lahayn isla markaana aan aqoon u lahayn nidaamka sharciyeed ayaa marar badan ku laabtay gurigiisa isagoo oo qacmo maran inkastoo uu cadeeyay in walaashiis la aasay 26 Janaayo 2026 balse kumaysan qancin arrintan ayaa cirka isku shareertay markii uu bangiga la yimid haraagi walaashiis si uu u muujiyo inay dhab ahaantii geeriyootay isla markaana uu isagu yahay dhaxal sugaha saxda ah talaabadan ayaa si weyn u gilgishay bulshada iyo baraha bulshada taasoo keentay in mas'uuliyiintu si degdeg ah u soo farageliyaan booliiska ayaa xaqiijiyay in Jeetu yahay qofka kaliya ee xaq u leh dhaxalka waxaana la dedejiyay dhamaystirka dokumentiyada loo baahnaa ugu dambeyntii bangiga ayaa sii daayay lacagtii oo ay ku jirto dulsaar halka Jeetu sidoo kale uu helay taageero dheeraad ah oo ka timid hay'adaha gargaarka haraagi walaashi ayaa mar kale si sharaf leh dib loogu aasay Kinijahar iyadoo ay ka qayb qaateen mas'uuliyiin badan Muqdisho warbixino dhawaan ka soo baxay ayaa muujinaya in xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo United Arab Emirates uu galay marxalad adag kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay bishii January 2026 ku dhawaaqday inay burisay dhammaan heshiisyadii ay la lahayd Imaaraadka iyada oo ku eedeysay faragelin ku saabsan madax bannaanida dalka go'aankan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay iskaashiga dhinacyada amniga tababarka ciidamada iyo mashaariicda dekedaha inkasta oo shirkado iyo maamul goboleedyo qaarkood ay sii wataan xiriirkooda Emirates dhanka kale Soomaaliya waxa ay xoojisay xiriirka ay la leedahay Sacuudi Carabiya iyada oo labada dal ay bishii February 2026 kala saxeexdeen heshiis iskaashi oo dhinaca militariga ah taasoo muujinaysa isbedel siyaasadeed oo ku waajahan xulufada gobolka isbedelkan ayaa imanaya xilli ay si xoogaysanayaan khilaafaadka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka ee ku saabsan siyaasadda gobolka gaar ahaan dhinacyada tamarta iyo amniga taasoo keentay kala fogaansho cusub oo ka dhex muuqata dalka Khaliijka ila wareedyo caalami ah ayaa sidoo kale tilmaamaya in loolankan u dhaxeeya Riyaad iyo Dubai uu saameyn ku yeelan karo dalal kale oo ay Soomaaliya ka mid tahay balse ma jiro cadeyn rasmi ah oo muujinaysa in Sacuudigu si toos ah cadaadis u saaray Soomaaliya inay si buuxda u jarto xiriirka Imaaraadka xaaladda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya waxay muujinaysaa dheelitir siyaasadeed oo u dhaxeeya quwadaha Khaliijka iyada oo Soomaaliya isku dayaysa inay ilaaliso danaheeda gaarka ah inkastoo ay jirto xiisad muuqata oo ku saabsan xiriirka Imaaraadka mudaharaado waaweyn ayaa gilgilay Jamhuuriyadda Jabuuti taasi oo lagaga soo horjeedo buuga Professor Siciid Sheekh Haruun Khaliif ay ku soo bandhigayso degmada Cali Sabiix dawladda Jabuuti ayaa weli ku adkaysanaysa in buuga lagu qabanayo Cali Sabiix waxaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo mudaharaadkaasi horkacayay balse lama oga inay go'aankeeda ku adkaysan doonto iyo inay ka noqon doonto si kastaba ha ahaatee arrintan murugsan ayaa laga cabsi qabaa inay sababto kala qaybsanaan bulsho iyo isku dhac